dirdir la isku laayayo intaan weerar daba joogno oo dumarku weerkiisitaan danabadii waayey oo sida dumeeraha u yaal meydku dabadiinna walee doogsan maysaan intaad dunida joogtaane dugsi mali qabyaalad waxay dumisa mooyaan tusaalaha labaad waa tadciyo ku jira maansada dheer ee la yidhaahdo sirta nolosha taasoo uu sameeyey allahu naxariistee maxamed ibraahim warsame hadraawi إن شاء الله حاولوا في عمتها لكن هل علت أخبتها حالة حابت قرح كلا يجيبون تياج الكوعد علينا بس لكن في أنا دانتا قصوة كيلو ما تغنى muraayad qayb ka mid ah ayaa laga tusinayaa muuqaalka hodan badbaado iyo gabadheedii hibo waaw qaybtan anigu way iga gadan tahay angalka kaameramanka uu ka soo qabtay aad iga gadan tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wacan wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan kuna soo dhawaada channelkan Koronto Studio caawa waxaa la soo daayay qaybtii labaad musalsalkii arday oo maalmihii la soo dhaafay hadda waxaan ku dhahay dhinac walba bahasha jiq isku noqotay laakiinse waxaa la islahaa filinkan mucaarad xoogan oo yeelan doona waa la joojin doona hadda leeyahay qadki nagu ciriiriseen aan gurigay waa ka fiirsan waay waxaa leedahay intaas oo kuna online ah oo Soomaalidu dhan wada sugayso way wada daawanayaan dad aanan filin daawan jirin hadda filinkii arday ay wada sugayaan qaarkood waxay isleeyihiin fasahaadka la sheegay bal ama aragtaan war qaybaha dambe way kuwaas yaaqay ultimate way asugu weynina qaybtan runtii 3 ayaan Soomaaliya ka baran karnaa qaybta koowaad oo ah qabyaalada iyo saameynta ay bulshada ku reebtay qaybta labaad oo ah in qofka muwaadinka ah wadankiisa inuu jeclaado inay aad muhiim u tahay iyo qaybta saddexaad oo ah in gabdhihii muxuu ahaa ii sheeg xiliyo badan xiliyada ay ardayga yihiin ay wax baranayaan in nin lagu qabsbo guurka qasabka ah gabadha nin aysan dooran nin aysan isfahmin lagu daraayo hadda filimka waxaa ku jiro macalinkeygii Cabdulcazaam xilli aanan dhaweyn macalin Bashiir Badane oo runtii hadda dhaqan yaqaan suugan yaqaan dagaalan xoogan ugu jira dhaqanka markii yaa wax fasaadinay saaxiibayaalo hadda sheekada runay tagta markaan aniga waxyaabaha keenay inaan musalsalkan aan asxaabta bal u soo muuqdo horta qaybtan haddii la joojiyo soo muuqan lahaa aniga mugtahay hadda qaybtan waxa uu tala galay in la soo daayo filimka ina idin dareensiyo laakiin haddii caadi dulkiisa uu ku socdo yaan bahaysanaaba ciidan wax ku haysanaaba ila tahay ma jirto ani reer filan inta badan waayahan dambe maanan ahayn waxaan ku jiraa dagaalan xoogan cibaadadii soonkii waxa saan iga dhigay isliimkan iga dhigay ujeedaan soon fara badan oo aan wada waay walaalayaal dagaal xoogan aan ku jiraa jirkeygii ayaan la dagaalamaya marka filin iyo xoog maba u haayay cibaadan ku jiraa sidaas oo ay tahay haddana waxaan ka dhiidhiyay oo aan diiday in dhalinyaro Soomaaliyeed hadda dadka aan naqiinay wada ah hodan badbaadaan u jeedaa muxuu ah ii sheeg macalin Bashiir aan u jeedaa yaan u jeedaa dhalinyaro fara badan aan u jeedaa oo waa hore iigu dambeysay dadkii aan wada garanaynay in maanta la yiraahdo fasahaadinay wadaan anuu intaas kaliyahan diidanaa bal aan daawano qaybta qabyaalada ee filinkan arday qaybtiisa labaad lagu soo kordhiyay dirdir la isku laayayo intaan weerar daba joogno oo dumarku weerkiisitaan danabadii waayey oo sida dumeeraha u yaal meydku dabadiinna walee doogsan maysaan intaad dunida joogtaane dugsi mali qabyaalad waxay dumisa mooyaan tusaalaha labaad waa tadciyo ku jira maansada dheer ee la yidhaahdo sirta nolosha taasoo uu sameeyey allahu naxariistee maxamed ibraahim warsame hadraawi oo sawirkiisu halkaas dambe iiga muuqdo hadraawi waxa uu inagu dardaarayaa in aynu qalinka ku dheganaano oo haddaynu qalinka ku dheganaano aan ku gaari karno meel kasta oo aan nolosha higsanayno waxaad daawanayseen qaybtii qabyaalada ka hadlaysay sidoo kale filinkan waxyaabaha muhiimada gaarka uu leeyahay waxaa waaye in micnaha dhalinyaradu iskooleeda xabad markay arkaan wiilashii inay lambar ka qortaan iyo xabadda hadda muuqaalkeeda idin muuqanayo waa tariishadii filinkan muxuu inta badan aad arkaysan inay gaangiistarad ahayd
muxuu ahaa labadan wiil halkan fadhiyaan waxay sharad ku geli doonaan in gabadha lambar laga qaato bal taariikhda ka raaci doonto aynu daawano ورا المرني وردن اسكده دابح ونمبر كو سو خاد maxaa ka sharada $10 ay sharada okay ana $10 la ay sharad ragan abba adi am saaxibta telefonkin mid kamid diiba waxa qof ka wacana $5 lacag lagu soo diraa daartan wax kala hara يا نمبركina roon iskadada okay waa wax dib ma lahan horta numberkiin wax muhiimad ah kamil yahay laakiin laba mid aan qane hada numberkiin ii diidin $10 lacag waana laakiin hada istiisaan $10 lacag faa'iido marka waxa taaganahay abba walaalka caab هاي زينب ولكن عارف صح lambaraa loo qoray saaxiibka wuxuu iska dhaadhiciyey inuu inaaf yahay laakiinse lambarka loo qoray lambarkii aabbo waaye hadhow dambe wuxuu dhihi doonaa walaalayaal lambarka ay siiseen maxaa waaye qof kala qabanaye maxaa qaldan camal uu taagan yahay runtii filimka dhinacyo badan maadaama weli is aragyaa lagu jiraa gabdhaha halkan fadhiyo waa qaybtii maqaaxida gurigan dhan waxaa loo dhisay filimkana loo dhisay wax walbana waa lagu dhammaystiray iskuulkan ugu dambeyntii yaaqeeyo maana siisaanaaniin waxaa jirtay in micnaha ciyaal casiir ay ku wada kaftamayaan gabdhahan bal kaftankooda oo runtii muujinayo in qofka muwaadinka loo baahan yahay wadankiisa inuu jeclaado iyana bal halkay Yemen ka imaaday Yemen. From Yemen atay. lama sano la joogaa Xamardan. yaa Okay, marka ma la qabsatay mise? waa la qabsaday xeer la idman Xamari markii xag ka waran. إن شاء الله حمر وفي عمتها هي لكن هل علت أخبتها Xaala. حابة يقرح كلا يجيبون انتياج الكوعد علينا بس لكن في أنا دونتا قصوة كيلو ما تغنى Ma insha Allah ku bixina. daangadu waa iskala qabsanay bombom عايز كده أنا خبصة adoo daanga karsanaysa leegso qaad wow runtii aad bay muhiim u tahay in dadkii baxay dhalinyaradii qurbaha jirtay kuwii dalalka carabta naga aadeen inay wadankii dib ugu soo laabtaan runtii aad bay muhiimad gooniya noogu leedahay dalka iyo dadkana runtii aad bay wadaniyadu qiimo gooniya ugu leedahay qof walba Soomaaliyeedna wadaniyada aad bay muhiim ugu tahay jacaylka maxaan baxnaa shay maxaan ka ilaalshay bayla maxaan balanteedkeeyey waxaa ii muuqanayo shoob lacabde farsamo yaqaankii radio Simba maantana matalayo hibo aabaheeda filimka qaybtan hibo ayaa la yiraahdaa waa gabadha ardayda ah waa la bixiyay nina lagu diray hooyadeedna yaa waaye hooyadeedna waxaa waaye fanaanadeedii marna walaashay haddee ila daawada hibo aabba waxaan kuugu imid inaan arrinkaala hadlo Maxaa waan abbo. aabba martida maanta ila joogtay aday kusoo doonteen aabba maadaama gashaanti aad tahay oo aad gaartay xilligii guurka waxaan go'aansaday inaan ku bixiyo Laakiin aabba sidee ani weli waxbarashada ay socoto. Maxaa gurkan igu dadajinaysa midda kale aniga qofa aqoonin si u gursana. aabbo gabadhaydaa tahay wiilka waxaa dhalay nin saaxiibo qadiimi aan nahay oo qaxi isugu kii dambaysay aabbo dantaada ayaan ka shaqaynayaane ma laga yaabo marnaba waxaan dantaada ahayn inaan ka shaqeeyo
muraayad qayb ka mid ah ayaa lagaa tusinayaa muuqaalka hodan badbaado iyo gabadheedii hibo. waaw qaybtan anigu way iga gadan tahay, angalka kaameramanka uu ka soo qabtay aad ay iga gadan tahay. hooyo anu qorshahay guur ma ahayn. haba ase maale go-aan iska gaarane. hibo waa la bixiyey, awshoob lacagda wuu bixiyey. hodan badbaado iyo gabadheedii sidaad aragtaanba waxay muujinaysaa qaybtan in hooyooyinka mar walba loo baahan yahay inay gabdhaha la saaxiibaan. waayo hadda gabadhii muxuu ahaa ii sheeg la bixiyey waxa ay la sheekaysanayso ay isku foogaara bixinayso waa hooyadeed. qaybtan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. filinkii mar haddii lasoo fasaxay oo hawada uu noogu jiro haddee wixii ka dambeeya danaheena raacanayna. laakiin haddii la dhaho fasahaadina wadiin waa la joojina, haddii la dhaho haddee walaalayaal waa laisqodqoda, haddii la dhaho fasahaadin meeqo tiktok markaad tagtid wax kasta waa la keenay, wax kasto waa la keenay. midda kale astaan t v oo waxaan ujeeda lagu dhagan yahay. walaalayaal haddii business waxaan annagii aan muujinay inaan ula jeedno micnaheedu maahan. asnaan waxay hiigsanaysaa qorshayaal fogfog ay hiigsanaysaa, laakiinse ka daaya bahasha a ku wadaan adinka naftirkiina. annagoo filinkan aan difaacanaynay, filinkanna reactionkiisa wuu dambeeyaa marka uu dhammaado oo filinkan uu soo gabagaboobo. kow wasaaradda waxbarashada ay qabsanaysaa, aabba ay dhihi doontaa, ayadaa keeni doonto ciddi ka dambeysay in la dhaho filinkan fasahaad waaye. culimo badanna way ka hadleen kolley markuu dhammaado ama inta aan daawanayno. hadda qaybtan inta aan daawanaynay oo hadda qaybtan labaad maxaa aragteen oo fasahaadin oo aragteen oo noo muuqanayo. tan iyo kulantideennii dambe sidaa iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.